daawadayaal kusoo dhawaada saxafi filimis oo had iyo jeer idiin soo gudbisa barnaamijyada aynu kaga hadalno aktarada dalka India u dhashay iyo filimada ay sameeyaan. Daawadayaal barnaamijka waxaynu kaga hadlaynaa Salma Khan iyo Deepika Padukone. Labadan jilaha oo ka mid ah aktarada shirkadda Bollywood ayaa waxaa lagu tilmaamaa inay haatan ka mid yihiin xidigaha ugu sarreeya marka ay noqoto qiimeynta dhanka ragga oo jilaaga Salma Khan uu qaatay dhanka dumarka oo ay qaadatay Deepika Padukone. Haddaba in labadan ay noqdaan labada xidig ee ugu sarreeya shirkadda Bollywood maxay tahay sababaha ay ku mutaysteen inay noqdaan xidigaha ugu sarreeya? Salma Khan waxa uu dusha ka maray Akshay Kumar, Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan iyo Ranveer Singh. Salma Khan kaalinta koowaad ayuu ku jiraa halka kaalinta labaadna uu Akshay yahay, saddexaadna Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchanna afaraad iyo Ranveer Singh oo kaalinta shanaad galay. Salma Khan waxa uu helay dhibcihii markii la isu aruuriyay total pointskiisa 89, Akshay Kumar 73, Shah Rukh Khan 60, Amitabh Bachchan 43 iyo Ranveer Singh oo 32 helay. sidaasina waxa uu Salma Khan ku noqday kaalinta koowaad inuu ka galo aktarada shirkadda Bollywoodka filimada ka sameeya. Deepika waxa ay gashay kaalinta koowaad, Sonam Kapoorna waxa ay gashay kaalinta labaad, Alia Bhatt saddexaad, Priyanka Chopra afaraad iyo Sonakshi Sinha oo kaalinta shanaad gashay. Deepika waxay heshay points gaaraya 95, Sonam Kapoor 58, Alia Bhatt 46, Priyanka Chopra 41 iyo Sonakshi Sinha 33 dhibcood. sidaasina waxay ku tahay kaalinta shanaad ayay ka fadhidaa marka qiimeynta atariishooyinka filimada ka sameeya dalka India ee shirkadda Bollywoodka lagu qiimeeyo. Haddaba Deepika Padukone maxay tahay sababta ay ku mutaysatay inay hesho 95 points? Atariishadan waxa ay daadisay filimkeeda caanka ee Padmavat. Filimkan Padmavat oo ahaa filimkii muddada la isku haystay mudaharaadyo badanna ay ka dhaceen dalka India si aan filimkaasi loo sii deynin. filimkaasi markii la sii daayay dad badan waxay aaminsanaayeen taageerayaasha ay ku leedahay Deepika Padukone dunida in ay hoos u dhici doonaan. Hayeeshee filimkaasi markii la daawaday gobollo badan oo dalkaasi ka mid ah ayaa aad u ammaanay. Salma Khan markii uu sameeyay Tiger Zindagi Hai oo la daadiinaysa atariishada Qatarsan waxa uu noqday jilaaga ugu wanaagsan uguna taageeraha badan dalkaasi India, waxaana uu noqday filim lacag badan ay ka soo xaroodeen. Akshay Kumar haddaba maxay tahay sababta uu ku mutaystay kaalinta labaad inuu galo? Waa filimkiisa Batman iyo advertisement-iga uu sameeyay oo la qiyaasay filimkaasi in dad badan ay sugayaan. Waxaa filimkaasi qorshaha in 25 bisha Janaayo la sii daayay, filimkaasi dib u dhac ayaa ku yimid, waxayna sababta filimkaasi Sanjay Leela Bhansali ee Padmavat inay isku dhacaan ayaa lagala cararayay, waxaana la sii dayn doonaa 9 February ee bisha haatan aynu ku jirno. Sonam Kapoorna waxay ku heshay oo kaalinta labaad ay ku gashay waxa ay wax ka jishay filimka Batman. Waa sababta keentay iyadii Akshay in ay galaan kaalimaha labaad. Deepika Padukone haatan waxaa lagu tilmaamaa oo ay u caleema saaran tahay in ay tahay Queen of Bollywood, waana atariishada qura ee ugu jiliinka wanaagsan marka laga yimaado afarta ku xigta ee kaalimaha ka dambeeya iyada ku jira. Daawadayaal barnaamijka aynu kaga hadlaynay Salma Khan iyo Deepika Padukone oo galay kaalimaha koowaad dhanka jiliinka marka ay noqoto